السلام عليكم أخيرا وإن سلام dhamaantiin meel walba dunida ka kala joogtaan waa anigoo Mo ah jimco wanaagsan jimco kariim dhamaantiin intii hore noola socotay waxaa leeyahay waa mahadsantihiin laagtii sharka anaga ilowin inta nagu cusubna waxaa leeyahay soo dhawaada subscribe dhaha si aan noola socotaan qofkii aan fahansaneyn qaabka filimka soo geliyo waxaan soo dhignaa maalin kasta filim cusub qaab linki ahaan ah filimka full oo HD ah looma ogola YouTube sidaa darteed filimka HD ah oo full ah filim cusub waxaan soo geliyaa af Soomaali ah Google Drive kadib waxaan soo geliyaa muuqaal yar aan ku sharaxayo filimka iyo waxyaabo qoseeyo kadib meesha commentiga ama muuqaalkaas muuqaalka hooseeyo meeshiisa commentiga aan geliyaa filimka oo dhameystiran soo muuqaalka hoostiisa ama muuqaalka ku xiga hoostiisa ka fiiriya mar walba filimka oo dhameystiran oo link ahaan ah inta kadib filimka maanta idin hayo waa filim weyn waa filim cusub actorka caanka Akshay Kumar filimka magaciisa waa Raksha Bandhan oo soo baxay 12 August 2022 waxaa directorka Anand Rai producerka Alka Hirandi waxaa wada actorinka ka ah Akshay Kumar Rami Badnakar Sarjmin Kaur Raj Deepika Khanna Sadia Khatib Tasri Khan Sema Bawa Meera Jisud Abhilash Tabilai Abhishek Singha Deep Jahal Lovely Bati actorin kala dhowr tiro badan filim Bollywood ah filim family ah filimkan filim bid wuxuu ku qiimeysay 5.2 IMDb wuxuu ku qiimeysay 10.5 Bollywood movie review wuxuu ku qiimeysay 5.3 Sofindi wuxuu ku qiimeysay 5.2 Kaimo wuxuu ku qiimeysay 5.2 waxaan filayaa marjana inaad ka heli doontaan intiina fiimaanta qisada iyo filmka jecel qisada filimka mar waa inaan ka sheego waa qiso in book taariikhi ah hor loo qoray waxyaabo laga dhaxbiyay qaar diin qoseeyo qaar laakiin muhiimaddu waa qiso walaalo qoseeyo wiil iyo walaashiis iyo walaalihiisa kale dadku soo gabeeyay falfalada filimkan linkiga filimka oo dhammaan filimkan cusub linkigiisa waxaan soo gelin doonaa muuqaalka shalay soo daayay muuqaalka ka hooseeya meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta jimcaha ah waxaan dhahayaa biin soo koro walaa haddaan ku celiyo linkiga filimkan oo dhameystiran oo HD ah waxaan soo gelin doonaa muuqaalka ka hooseeya meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta waxaan filayaa marjana inaa dhamaantiin arki doontaan qofkii aanan fahmin ama aanan soo weydiiyay meesha commentiga anaa ugu jawaabi doona waxay ku codsi laagtii sharkina laga ilaawin sidaas nabadgelyo maalin wanaagsan enjoy it